qof kasta oo maanta nool wuxuu leeyahay laba sawir oo kala duwan. Midka koowaad waa qofka uu maanta yahay, kan labaadna waa qofka uu biri noqon karo. Farqiga u dhaxeeya labadaas sawir ma aha nasiib, mana aha mucjiso, waa dadaalka, go'aanka iyo doorashooyinka uu qofku sameeyo maalin kasta. Dad badan waxay eegaan xaaladooda maanta, waxay aaminsan yihiin inaysan waxba ka bedeli karin. Haddii ay sabool yihiin, waxay moodaan in saboolnimadu ay la jiri doonto inta ay nool yihiin. Haddii ay waxbarasho la'aan yihiin, waxay rumaystaan inaysan weligood wax badan gaari karin. Haddii ay ku fashilmeen hal mar, waxay u qaataan in guuldarradu tahay saaxiibkooda joogtada ahi. Laakiin taasi run ma aha. Taariikhdu waxay ina tusaysaa in dadkii ugu guulaha badnaa dunida aysan ku dhalan xaalado quman. Qaar badan waxay ka soo bilaabeen meel aad uga hooseysa halka ay maanta joogaan. Waxay lahaayeen riyo, waxayna rumaysnaayeen inay biri ka wanaagsanaan doonto midda ay maanta tahay. Waxa ay rumaysnaayeen ayaana ku dhiirigeliyey inay sii socdaan xitaa markii ay caqabado badan la kulmeen. Waxaa laga yaabaa inaad maanta dareemayso daal, niyad jab iyo rajo la'aan. Waxaa laga yaabaa in qorshayaal badan oo aad samaysay aysan rumoobin. Waxaa laga yaabaa inaad marar badan isku dayday inaad noloshaada beddesho, balse aad dib uga noqotay halkii aad ka soo bilowday. Hase yeeshee, hal shay waa inaad fahamtaa. Guushu ma timaado hal maalin gudaheed. Waxay ku timaadaa tallaabooyin yaryar oo joogto ah. Qofka aad biri noqon doonto waxaa dhisaya waxa aad maanta samayso. Haddii aad maanta akhrido buug, biri waxaad yeelanaysaa aqoon ka badan tii shalay. Haddii aad maanta barato xirfad cusub, biri waxaad heli kartaa fursad shaqo oo ka wanaagsan tii aad maanta ku dadaalaysay. Biri waxaad goosan kartaa miraha dadaalkaaga. Noloshu waxay ka mid tahay beer. Haddii aad maanta abuurato miro wanaagsan, biri waxaad goosan doontaa dalag wanaagsan. Haddii aad iska dayacdo beertaada, wax faa'iido leh kama soo bixi doonaan. Sidaas oo kale, maskaxdaada, aqoontaada iyo mustaqbalkaaga waxay u baahan yihiin daryeel joogto ah. Mararka qaar, dadku waxay aad u eegaan meesha ay rabaan inay gaaraan, oo waxay iloobaan tallaabada ugu horreysa. Waxay rabaan inay noqdaan ganacsato waaweyn, laakiin ma bilaabaan ganacsi yar. Waxay rabaan inay noqdaan aqoon-yahano, laakiin ma furtaan buugaag. Waxay rabaan inay caafimaad yeeshaan, laakiin ma sameeyaan jimicsi. Riyada keliya ma beddesho nolosha, laakiin ficilka ayaa beddela nolosha. Waxaa muhiim ah in qofku naftiisa aamino. Haddii aadan adigu rumaysanayn awooddaada, cid kale kuma rumayn doonto. Kalsoonida naftu ma aha inaad ogaato in wax walba kuu fududaan doonaan, balse waa inaad rumaysnaataa inaad la tacaali karto caqabad kasta oo ku soo wajahda. Qofka guulaysta iyo kan guuldarraystaba marar badan ma kala laha caqli badan iyo caqli yar. Farqiga ugu weyn waa adkaysiga. Mid ayaa joojiya marka uu dhib la kulmo, halka kan kale uu sii socdo. Mid ayaa ka quusta riyadiisa, halka kan kale uu ku dheganaado ilaa uu ka xaqiijiyo. Maanta waxaad noqon kartaa qof aan haysan shaqo, laakiin biri waxaad noqon kartaa qof shaqooyin abuuraya. Maanta waxaad noqon kartaa arday aan weli qalin jabin, laakiin biri waxaad noqon kartaa khabiir ay dadku tala weydiiyaan. Maanta waxaad noqon kartaa qof aan cidina aqoon, laakiin biri waxaad noqon kartaa qof saameyn weyn ku leh bulshada. Ha u oggolaan khaladaadkii hore inay go'aamiyaan mustaqbalkaaga. Wixii dhacay waa cashar, ma aha xukun. Qof walba wuu khaldamaa, qof walbana wuu dhacaa, laakiin dadka waaweyn waa kuwa mar kasta dib u kaca. Marka aad hurdada ka toosto subax kasta, xasuusnow in maalintaasi tahay fursad cusub. Waa bog cusub oo aad ku qori karto
sheeko ka wanaagsan tii shalay. Waxaad dooran kartaa inaad sii joogto halkii aad joogtay, ama aad ka qaaddo tallaabo kuu dhoweynaysa qofka aad rabto inaad noqoto. Ugu dambayn, qofka aad maanta tahay ma aha qofka ugu dambeeya ee aad noqon karto. Gudahaaga waxaa ku jira awood, karti iyo fursado badan oo laga yaabo inaadan weli ogaan. Haddii aad rumaysnaato naftaada, aad dadaasho, aad barato wax cusub maalin kasta oo aadan ku quusan caqabadaha, waxaa hubaal ah in berri aad noqon karto qof ka wanaagsan kan aad maanta tahay. Haddaba xasuusnow, mustaqbalkaagu wuxuu ka bilaabmaa maanta. Tallaabada yar ee aad hadda qaaddo ayaa laga yaabaa inay noqoto bilowga guusha weyn ee aad sannado badan ku riyoonaysay. Mar kastana waa inaad ahaataa dadaalaa lagu daydo, qof kastana uu ka raadiyo bogoggiisa ama noloshiisa ku dayashada riyadii, hadafkii iyo qorshihii qurxoonaa ee adiga ku gaarka ahaa.